kabtii dahabka ee uu iibiyey muslimiinta Gaza dhiiggii dhuuxii uu isbedeli doonaa fikirka aad ka qabto markii aad daawato sheekadan. Cristiano Ronaldo ayaa 9 sano ku sugnaa Bernabeu kadib ku biiray kooxda Juve oo kula wareegtay adduun dhan 88 milyan oo pound. Sidoo kale mushaar qaali ah ayuu isbuucii ka qaataa kooxda reer Talyaani, inkastoo la sheegay in hadafkiisa ugu weyn oona ahayn beeso balse uu doonayo meel laga jecel yahay. Haddaba waxaan halkan ku soo bandhigi doonaa 10 tallaabo oo bini'aadanimo ah oo Ronaldo sameeyay taa oo bedeli doonta fikirka aad ka qabto wiilka reer Portugal. Nambarka 1, koobtii dahabka ee gooldhalinta Yurub. Dib u xasuuso 2011 waxaa la guddoonsiiyey kabta dahabka kadib markii uu dhaliyay horyaalka La Liga 40 gool, inkastoo kooxda Madrid ay ku dhamaysatay kaalinka labaad kala sareynta horyaalka Spain. Halkii uu Ronaldo haysan lahaa kabta waxa uu doortay inuu iibiyo iyadoo lagu iibiyay 1.2 milyan oo pound, waxaana loogu deeqay muslimiinta Gaza ee Falastiin. 2. Ballon d'Or-kii 2013. Ronaldo ayaa iibiyay kuubiga Ballon d'Or-kii 2013 iyadoo loogu deeqay samafalka dhacay London. Waxaa lagu iibiyay adduun dhan 530,000 oo pound iyadoo loogu deeqay hay'adda Make-A-Wish ee daryeesha carruurta qaba cudurrada halista ah ee aan inta badan laga kicin. Nambarka 3 waa safiir. Ronaldo ayaa safiir ka ah 3 hay'adood oo waaweyn oo samafalka ka shaqeeya, waxayna kala yihiin Save the Children, UNICEF iyo World Vision. Si joogto ah ayuuna had iyo jeer uga hadlaa in wax loo qabto carruurta iyo dadka dhibaataysan. Sanadkii la soo dhaafay waxa uu fariin u diray carruurta lagu xasuuqayo Suuriya, waxauna sheegay inay yihiin geesiyaal dhab ah isla markaana uu la jiro had iyo jeer. Waxa uu sidoo kale si qarsoodi ah lacago ugu deeqay Save the Children oo weydiisatay inuu taageero Ronaldo. Nambarka 4, lacagaha gunooyinka ah iyo bariimiyada. Ronaldo ayaa sidoo kale bixiyay lacago gunooyin ah oo ku aadan bandhigyadiisa wacan ee garoonka. 2013 waxaa lagu daray kooxda sanadka UEFA isagoo ku helay lacag bariimiyo ahaan ah 100,000 oo euro oo u dhigata 89,000 oo pound, waxaana uu ugu deeqay hay'adaha uu safiirka u yahay. Sanad kadib Ronaldo ayaa Benzema kula guuleystay Real Madrid Champions League-gii 10aad, waxaana bariimiyo aan u helay 450,000 oo pound halkii uu jeebka ku shuban lahaa. Waxa uu ugu deeqay hay'adda Save the Children. Nambarka 5, dhiigga iyo dhuuxa. Ronaldo ayaa jirkiisa u diiday inuu ku sawiro tattoo maadaama uu si joogto ah u bixiyo dhiigga. Dadka ku sawiran tattoo-ga way bixi karaan dhiigga, laakiin looma ogola inay bixiyaan dhiigga isla marka ay tattoo-ga isku sawiraan si loo yareeyo khatarta jeermiska. Ma ahan kaliya inuu Ronaldo dhiigga ugu deeqay dadka u baahan ee waxa uu sidoo kale ugu deeqay dhuux. Carlos Martinez oo ku koox ahaan jiray Ronaldo ayaa wiilkiisu u baahday dhuux, waxaana ugu deeqay Ronaldo. Nambarka 6, 5 milyan oo deeq ah. Ronaldo ayaa lacag xoog badan oo lagu sheegay ilaa 5 milyan ugu deeqay dadyowga reer Naples kadib markii uu dhulgariir ku dhacay bishii Abriil 2015, waxaana ku geeriyooday ugu yaraan 9,000 oo ruux halka ay ku dhaawacmeen 22,000 oo kale. Nambarka 7, waxa uu caawiyay xarun lagu daryeelo kansarka. Ronaldo hooyadiis Dolores Alvaro ayaa ka badbaaday kansar kaga dhacay naaska 2007. Ronaldo ayaa go'aansaday xaruntaasi oo ku taala Portugal inuu ugu deeqo adduun dhan 120,000 oo pound. Nambarka 8, casuumaad uu u sameeyay wiil agoon ah. Wiil yar oo taageera Madrid iyo Ronaldo oo ku noolaa dalka Lubnaan oo lagu magacaabo Hadrar ayaa qarax ku waayay labadiisa garab, hooyadii iyo aabihii. Wariye ku noolaa dalkaasi ayaa la xiriiray Madrid una gudbiyay sheekada iyagoo casuumay wiilkan yar. Ooyin ayuu jabsaday Hadrar markii uu arkay geesiga uu taageeri jiray ee Ronaldo. Nambarka 9, sidii uu caawiyay wiilkii yaraa ee qabay kansarka. Ronaldo ayaa 2009 lagu soo wargeliyay qisada
Nurzel Gulen oo ahaa wiil yar oo qaba kansarka halista badan ee inta badan loo geeriyoodo isaga iyo reerkiisa ayuu darawal u diray si loo keeno hotelka ay joogeen Real Madrid waxaana wiilkan yar u hibeeyay gool isagoo ku casuumay inuu ciyaarta ka daawado meesha uu ka leeyahay Bernabeu ciyaarta kadib waxa uu siiyay maaliyadiisa markii ay xumaatay xaaladda Nurzel Gulen Ronaldo ayaa loo soo bandhigay inuu bixiyo dhammaan lacagaha ku baxaya daaweyntiisa oo ah 100,000 waxaana bixiyay in ka badan sanad balse nasiib darro Gulen ayaa markii dambe u geeriyooday xanuunkii nambarka ugu dambeeya ee 10aad sida uu u xanaaneeyay walaalkiis ka weyn Ronaldo aabihiis Dennis waxa uu ahaa mid caadaystay khamri cabista isagoo ugu dambeyn u geeriyooday 2005tii walaalkii ka weyn ee Hugo Alvaro ayaa isna qaaday dhabbihii aabihii isagoo oo qabitamay khamriga iyo daroogada Ronaldo ayaa go'aansaday inuu walaalkii ka badbaadiyo jidka xun ee uu ku socdo waxaana u ballan qaaday in uu u hibeyn doono Ledesma haddii uu iska joojiyo daroogada iyo khamriga waxaana la arkay Ronaldo iyo walaalkii oo dareen qalbi taabasho leh wadaagaya kadib markii ay Real Madrid ku guuleysatay koobkii 10aad ee Champions League sheekooyinka Ronaldo waa kuwa gaaraya ilaa iyo 16 dhacdo ha yeeshee 10kan ayaan u aragnay in ay yihiin kuwa ugu muhiimsan haddaba daawadaheena qiimaha badanow waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan like saar muuqaalka si la mid ah follow garay page-ka Goal FM si aad u hesho muuqaalada sida maalinlaha aan u soo gudbino magacaygu waa Saciid Madaale